السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال أخيارتا دادك ولا لدين كحران بيتكينا هب ميديا waxaan caawa rabaa inaan idiin soo gudbiyo sidii caadadaba ahaan jirtay ama dhaqanka inoo ahaan jirtay waxaan habeen kasta inoo soo gudbiyaa ama idinku soo gudbiyaa meesha waxa aan u arka naftaydana inuu waxtar u yahay walaaladay nafahoodana uu waxtar u yahay ayaan soo gudbiyaa habeenadii ugu dambeeyey waxaan kusoo dhex jirnay saliidaha nafaqada leh ee jidhka bini'aadanku nafaqada ka helo khaasatan waxaan kusoo dhex jirnay saliido fara badan baan kasoo hadlay insha allah kuwo fara badan oo kalena waan ka hadli doonaa laakiin waxaan si gaar ahaana uga hadlayay habeenadan saliidda la yidhaahdo zaytuunka zaytuunku wuu fara badan yahay aad ayuu u fara badan yahay intaasoo saliidood oo saliidu zaytuun lagu dhahaya ayaad arkaysaa laakiin gaar ahaan waxaan uga hadlayaa saliidda ugu qaalisan ee ugu qiimaha badan ee lagu magacaabo saliidda la yidhahdo aljawf ama jawf la yidhaahdo zaytu jawf la yidhaahdo ayaan kusoo dhex jiray inaan ka sheekeeyo faa'iidooyinka ay leedahay walaalayaal haddaynu damacno inaan faa'iidooyinka ay leedahay saliidda joofka la yidhahdo inaan ka sheekeeyo caawo oo dhan haddaan damco ma dhammaystiri kara runtii xaqiiqatan waayo dad baa waxay ka sameeyeen ama jaamacaadba waxay ka sameeyeen buxuud fara badan ayay ka sameeyeen laakiin waxaan soo qaadanayaa inta dadkeennan soomaalidii ay fahmayaan ama ay fahmi karaan leanna dadkan soomaalidu uu sidoodaba ma ayna dhaqan uma aha inay saliidda zaytuunka la yidhahda isticmaalaan dhaqan uma aha walidaalika inta badan ma fahmi karaan waxyaabo fara badan oo dadka saliidda isticmaala ay fahmayaan ma fahmi karaan inta markaa aan isdhihi karo soomaalidu waxbay ka fahmi karaan ayaan aad uga sharxayaa caawa waxaan qaadanaynaa ilaa 10 faa'iido oo laga faa'iidaysto faa'iidada koowaad waxa weeyaan saliidda zaytuunka qofka jidhkiisa mariya ee jidhka korka ku duuga ama cabbe ama cuntada ku darsada cabitaan markaan ku leeyahay saliidda aad looma badsado macnaha qaado aroortii markuuna weli qureecanin isagoo gaajaysana qaado yeer intuu darsado ka bada ama cuntada ku darsada ama jidhkiisa ku jejebiya oo marmariya oo jidhkiisa oo dhan wada gaarsiiya cudurka la yidhaahdo kansarka kuma dhaco hadduu ku dhacana wax yar baa laga yaabaa inuu ka soo gaaro waa siday adibadu qoreen faa'iidada koobaad ee caawa aan qaadanayna waa taa ta labaad waxa weeyaan dadka uu ku dhaco findoobka xabbu shabaab baa la dhahaa xabbu shabaabka ama findoobku dhallinyarada uu ku dhaco ama dadka uu ku dhaco ee finanku wejiga ka soo baxaan wiilasha ama gabdhaha dadka noocaas ana findoob damba hadday wejigooda mariyaan iskuma arkayaan findoobka way la dagaalamaysaa faa'iidada saddexaad waxa weeyaan alxuruuqu aljismiya jidhka ololka dadka jidhka ka olole ee jidhkiisu mar walba cagaha cirbaha jidhka guud ololo dhabarka caloosha meelaha jidhka ay ololaan oo dhan jidh ololkana way la dagaalantaa oo meel kastoo ku olosha haddaad mariso qabow iyo raaxa sidaynu xalay soo qaadanay ayaa dareemaysaa faa'iidada afraad waxa weeyaan boogaha ama juruuxda waxa loo yaqaana nabarada iyo boogaha finanka iyo booguhu way kala duwan yihiin boogaha jidhka ka soo baxa haddaad mariso boog dambe iyo adigu waad isdaynaysaanoo boogihii afka isku qabsanayaan oo way baaba'ayaanoo way soo ururayaan li'anna dheecaanka iyo waxyaabaha wasakda ee meesha dhalanayay dilaysaa marka boogtii ma sii jiri doonto faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid a dowraanu ra'si madaxa xanuuna dadka ee madax xanuunka qaba ay hadday madaxa marsadaan saliiddaas oo habeenkii markay seexanayaan si fiican madaxa uga buuxiyaan aroortiina intay iska dhaqaan in yaroo fudud ay marsadaan madax xanuun iyo isaga way istaynayaan qofka gabar iyo wiil wuxuu ahaadaba waxaa faa'iidooyinkeeda ka mid a dadka alqashra fi ra's madaxa toxobta dadka ku leh waxyaabaha cadcad ee toxobta iyo hadduu saliid marsado hadduuna marsanin toxob un markuu shallayso is yidhaahdaba timihiisa wasakhda iyo qolfuhu kasoo buuxsamayaanna way tirtiraysaa ayadii iyo wasakh isuma yimaadaan waa nadiif waad garanaysaan suuratu nuur markii looga sheekeynayey waxaa ka mid ah faa'iidooyinkeeda calool fadhiga ama dadka calooshu fadhido hadday cuntada ku cunaan calool fadhiga isagu way istaynayaan calooshu way dhaqaajin musqushana wuu aadi mar walba ma aha sida saliidahan kale ee saliid caddayda iyo waxyaabaha lamidkaynu isticmaalno oo kale ma aha calool fadhi iyo qofka way istaynayaan hadduu cuntada ku cuno
waxyaabaha faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah oon filaya ka sideedaad inuu yahay sarataanu thadi. naasaha ama dumarka ama ragga, khaasatan dumarka, ilmaha markuu nuugo waxaa kaga dhaca inta badan naasaha waxaa kaga dhaca, ama xataa hadduuna nuuginba waxaa kaga dhaca kansar. kansarka naasahana kuma dhacaan qofka. caafimaad buu helayaa qofku, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka ilaalinaya, wuu ka caafinaya. hadduu saliidda isticmaalo ay mariso gabadhu, wiilku mariyo, sarataanu thadyi ku dhici maayo. faa'iidada sagaalaad waxa weeyaan wuxuu faa'iido u leeyahay, waxay u leedahay faa'iido saliidda la yidhaha saliidu zaytuunka ciyaalka yaryarka ee koraya. waa taqaanaan carruurtu markay yaryar yihiin bilowga hore xanuun iyo jirri iyo calool shuban kama baxaan. dhakhtar iyo daawo iyo sharoobooyin iyo kiniini iyo irbadaal lala dhacaa. canugii wuu hagaasayaa, lafihiisii ma korayaan, daawooyinka kimikaalka abaa dilaya. haddii aad canuga yarka a mar walba cuntada yaryaraad u karinaysa sida fayaasida, baradhada, waxyaabaha yaryaraad canuga sinaysa, haddaad mar walba ugu darto zaytul joofka haddaad ugu darto, ama saliidu zaytuunka joofka la yidhahdo haddaad ugu darto, canugu jirkiisuna wuu kori, xanuun badanna ku arki maysa, canugaas wuu ku caafimaadaya. faa'iidada tobnaad waxa weeyaan dumarka xawaamisha ah ee uurka leh, ayaguna hadday isticmaalaan, xalay waxaan soo qaadanay marka ay walaca yihiin mantaga iyo yalaalugada iyo labalabada iyo waxaasoo dhan bay ka tirtirtaa. waxaan caawa ku daraynaa dumarkaasi hadday isticmaalaan, xanuunka dumarka ku dhaca ee nafaqa yaraanta ah oo dhan wuu istaynayaan. nafaqay jirkeedu helaysaa, ilmaheeduna nafaqa ayuu ka helayaa. qoftiina awood iyo quwo kaamila ayay yeelanaysaa, hadhow ay ku docon karto, ilmihii ku dhali karto. caawa marka waxaan jeclaystay 10 faa'iido inaan kusoo koobo cashirkeennii aan uga hadlaynay saliidda la yidhahda aljawf la yidhaahdo. saliiddaas sawiradeeda oo kala duwan iyo kalaradeeda oo kala duwan, habeen walba markaan cashirka saas oo kale idinku soo diyaariyo ayaan idiin soo raaciyaa. marka ka faa'iidaysi wacan ila socda. waa qaybtii 3aad caawa qaybtani, ilaa insha allah intii muddo a waan wadaynaa. fawaa'ideeda iyo waxyaabaha ay faa'iidayso ayaan ka sheekaynaynaa. habeenka ugu dambeeyana insha allah waxaan ka sheekayn doonaa dhibabka qofka ay ku yeelan karto. waxaan kaloon ka sheekaynaynaa kayfiyada loo isticmaalayo. mar walba oo saliidda zaytuunka isticmaalaysa, cunto inaad ku karinaysaba mooyaane, haddaad horta cabitaan iyo u isticmaalaysa inaad kabato, wax yar kabo. jirka laakiin waad ka badin kartaa. kolkaad jirka ku duugaysa ama madaxa iyo timaha marinayso, si fiican baad u marsan. laakiin markaad saliidda liqayso ama aad kabanayso, wax yar oo qaado afkeed abaad liqaysa adoo gaajaysan. si waxay xale aynu soo sheegnay gooryaanka iyo waxa calooshaada ku jira iyo wasakhda oo dhan ay kaaga nadiifiso. habadsanin kolka aad afka aad isticmaalaysa aad rabto keligeed ayadoo aynaad cabto aad rabto. intaa qaada yar ha ka badinin. wallahu aclam.